Itoobiya ayaa soo saartay war gaf ku ah madax banaanida geeyi iyo xornimada dalka Somalia iyadoona qeyl ka dhiganaysa halis ay sheegtay inay ku hayso kooxda al-shabaab oo ah koox ay sidoo kale ku marmarsoodaan dalalka kale ee reer galbeedka iyo howlgalka midowga Afrika ee ka jira dalka Somalia. warka Itoobiya ayaana si hordhaca waxa uu uga jawaabayaa hawsha socota ee ku saabsan in Itoobiya laga tuuro ciidamada nabad ilaalineed ee ku sugan dalka Somalia laguna bedelo ciidanka dalkaasi Masar oo qayb ka noqonaya dufcadda saddexaad ee ciidamada nabad ilaalineed ee jooga dalka Somalia ee hoostaga midowga Afrika kuwaas oo halka ku sugnaatan iyo 2017 Somalia xaq kasta ay u leedahay in ay heshiis la gasho dalkii ay doonto ayaa lagu bilaabay hadalka Itoobiya balse waxa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya la xusuusiyay heshiisyo tarab ah oo ay barihii dambe galayeen waxaana Itoobiya tiri waxay heshiisyo ammaan oo la mid ah kula jiraan Kenya, Itoobiya, Uganda, Suudaan, Imaaraadka, Sacuudiga iyo qaar kale marka taasi anaga nama walaacinayso ayuu yiri Nabiyu Tadla afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya. howlgalkan cusub ee AUSOM ayaa sanadka soo aadan ee 2025 waxa lagu wadaa inuu bedelo howlgalka ADMIS oo socday tan iyo 2022 kaasoo ay si tartiib ah ciidamadiisu uga baxayeen dalka Soomaaliya ku dhawaad sanad balse iminka waxoogaa la gaabiyay kadib markii ay shabaabku bilaabeen inay dadka shacabka ku weeraraan magaalada Muqdisho. golayaasha ammaanka ee qaramada midoobay iyo midowga Afrika ayaana lagu wadaa in bisha soo aadan ay daboolka ka rogaan taxa ama liiska dalalka xubnaha ka noqonaya howlgalka AUSOM. xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex oogan Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa waxa ay keentay shaki ku aadan in Itoobiya ay qayb ka noqon karto howlgalkaasi xilli ay dawladda federaalku hore u soo jeedisay in ay dalka ka baxaan balse wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa waxa ay ka digtay in dib u qaabeynta howlgalka midowga Afrika uu noqdo il ay ka soo faruurmaan xiisad iyo khilaaf cusub oo ka dhaca geeska Afrika kadib markii ay golaha ammaanka ee midowga Afrika ee loo yaqaan PSC ay toddobaadkii tagay soo dhaweeyeen in dalalka Masar iyo Djibouti ay xubin ka noqdaan howlgalka cusub. Itoobiya waxay aaminsan tahay in si taxadar leh loo soo xulo dalalka ciidamada ugu qaaraamaya howlgalka AUSOM waxaan si adag u aaminsanahay in dalalka howlgalka ku jira aanay sababin khilaaf gobol ayuu yiri Nabiyu isagoo inta raaciyay in Itoobiya ay xaq u leedahay in ay iska difaacdo wax uu ku sheegay al-shabaab oo intii hore imika ka xoogan sida uu yiri. qaybtan soo socota ayaa midda ugu daran hadalka ka soo baxay Itoobiya waxa qoraalka lagu yiri ma jirto cudud ama awood Itoobiya ka celin karta inay qaado tilaabooyinka daruuriga ah iyada oo aan cidna fasax ka qaadanin. Itoobiya waxay arrintan la kaashan doontaa dalalka dariska ah oo dhan mana jirto si ay Itoobiya u ogolaan doonto wax ciidan ah oo ka soo horjeeda danaheeda inay ka soo baxaan ama ka soo muuqdaan dalka Soomaaliya. Itoobiya waxay sii wadi doontaa in ay qaado tilaabooyin ay si nidaamsan u qorshaysay si ay u ilaaliso danaheeda qaran ayuu yiri Nabiyu. waxa qoraalkan oo lagu faafiyay warqadka Addis Standard ku jira kelmadda calculated action ama actions waxa sidoo kale lagu fasiraa marka uu qof wax u qorsheeyo si ay khiyaano ku jirto. waxa uu hadalkiisii raaciyay in kooxda argagixisada ah ee shabaabku ay iminka ku howlgalaan hub intii hore ka casirsan iyo tiknoolajiyado aan la saadaalin karin oo ay ku jiraan daroono kuwaasoo taatika ahaan lagu weerari karo xarumaha military iyo kuwa rayidka sida uu yiri. waxaan rajaynaynaa in golayaasha ammaanka ee midowga Afrika iyo qaramada midoobay iyo dadka kale ay khusayso ay fahmaan arrintan. dalalka ciidamada ku qaaraamo oo Itoobiya ku jirto waxa ay leeyihiin dano adag oo ku saabsan Soomaaliya oo nabdoon marka ka hor inta aan ciidamo cusub la keenin waa in khibradooda iyo casharadooda xisaabta lagu daraa waayo dalalkani si cid kasta oo kale ka wanaagsan ayay u fahamsan yihiin al-shabaab ayuu yiri Nabiyu. afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu ku dooday in dhaqaale ahaanna ay ka waxtar badan tahay in la adeegsado ciidamada iminka ku sugan gudaha Soomaaliya oo ay ka qayb galaan howlgalka soo socda halkii la keeni lahaa kuwa cusub. Itoobiya Soomaaliya waxay la wadaagtaa dhul dheerarsan wax ka badan 2000 oo kiiloomitir waxaana ciidamo ugu qaaraamaysay muddo ka badan 10 sano. walaaca ammaan ee Itoobiyana waxa uu salka ku hayaa kooxda shabaabka sidaa darteed Itoobiya arrintan waxay ula socotaa si aad u dhow ayuu warkiisa ku soo afjaray Nabiyu wala uu baan ka sheegay dhererka xadbeenaadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ah 1648 kiiloomitir halka uu isagu ku sheegay wax ka badan 2000 oo kiiloomitir. si kastaba se ugu dambeyn hadalkan gafka ah ee ay u bareertay ama la bareertay Itoobiya ayay tahay in ay talaabada la gudboon ka qaado ama go'aanka ku qaabsan ka qaadato ama hadalka ku haboon ka tiraahdo dawladda federaalka Soomaaliya. Maxamed Xaaji hadal samti dalkeenna qarribay
dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkiidinka qarribay